السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته وإني سلام ميلو بأدوني ذا كجوكتا أنا مقعيق وحفصة هديتا مكي كوريس أجانا كاسوبو قنات فترة سبسكرايب إيسار هور هدا إيلا جوكتا وكما هادسانتاي مانتو حاسمين دونا سيسين النعلوس نسكيلا سيسين النسكيلا النعلوس سامين دونا اسكو ديارينتي عيد ممعانك وإن شاء الله سي فضود أي أسامين دونا كفايديس laba koob oo sokor ah dabka soo saartay sokorta ayaa dhalaalinaya waxa ku sameey doona waa nus kiilo oo sisin ah waa 500 oo gram oo nus kiilo sisin ah insha Allah sokorta markay noo soo dhalaasho markaas ku dari doona aad iyo aad iis u tahay sisinta qof walba sameyn kara qof waligiis sameyn xataa sameyn kara sokorta unba dhalaalinaysa kadib sisinta ku qasaysa kadibna waa ka dajinay waa fidinaysa very easy waa wala tijaabiyo insha Allah هذا سكرت وسود دلالوسا وحير إلا بيبي كنقطة هذا كراميل مكان سمينه عمل زائد وإنه دلاشة ما كليش نقطة دلاشة قدر دونا إن شاء الله. عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير. يسرنا ويطيب لنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أولا الحمد والشكر لله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم لا تشغل عقلي بما يقلقه ولا قلبي بمن لا يرحمه ولا وقتي بمن لا ينفعه. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري ولا تتركني بقلة صبري ولا تحاسبني بقلة استغفاري. Losing is part of winning. Without a loss, you will never learn. Without a loss, you will never grow. Just because you didn't get it right the first time doesn't mean you won't get it right the second time. You may fail 7 times, but it only takes one shot to win and to change your whole life. Understand this again. Losing is part of winning. You are a winner. Push yourself. Be careful of jealousy. It will eat you up and destroy you. Don't be jealous. When Allah's given one and not another, be they brothers or friends or anyone else, just acknowledge it. Say Alhamdulillah and move on. Make a dua for them and a dua for yourself as well. Oh Allah, you've blessed them. MashaAllah, tabarakallah. Oh Allah, bless me too. That's how it should be. اللهم ارزق أمي بركة في عمرها ونورا في قلبها وضياء في وجهها وسعة في رزقها ورضا في نفسها واصرف عنها كل سوء ومرض. sokorteena waa noo dhalaasho waxa la soo gaaray waqtiga sisinta ku dari lahaay wax badan dabka ma saarnaanayso waa isdhexgelina uun 5 daqiiqo ay saarnaanaysaa kadibna waa fidi doona waa jarjari doona saxanka ayaa soo saari doona sidii ku soo baxdo waa arki doona aad iyo aad u fududahay ka faa'iideyso insha Allah. hadday dadku ilaahay ka baqaan oo ilaahay ka cabsadaan nolosha adduunyadu waxay noo noqonaysaa janno ku sug. 3 shay baa la yiri ummaduhu way ku dumaan 3 ummaduhu way ku horumaraan oo way ku dhismaan 3 ummaduhu ay ku horumaraan waxa weeyaan waa runta iyo amaanada iyo cadaaladda 3 ummaduhu way ku dhismaan. ninkii doonay inuu ummad dhiso ninkii doonay qoys inuu dhiso ninkii doonay mujtamac inuu wax u taro bay culimadu leeyihiin 3 khasladood waa in laga helaa amaano waa in laga helaa waxa lagu dhiibay ama reerkaaga ha noqoto ila nin walba reerkiisa waa ka mas'uul ama meherad qof leeyahay ha noqoto ama mas'uuliyad hoose ha noqoto ama mas'uuliyad ummadad ha noqotee wixii lagu dhiibay waa in sideeda lagugu yimaadaa waayo ilaahay baa ku arkaayo ku maqlaaya. amaana iyo sidq waa inuu yeesho qofka muslimku sidq dadka run uu sheeg waliga been ha sheegin oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay ku yiraahdeen yaa rasuul Allah niga muuminku fulo ma noqon karaa ها waa noqon karaa buu rasuulku yiri
ninka mu'minku ma aragtaanay bakhayl ma noqon karaa uu noqon karaa buu rasuulku yidhi markaa baa nebiga lagu yidhi nebi allow ninka mu'minku beenaale ma noqon karaa markaa buu nebigu yidhi mu'minku beenaale ma noqon kara buu yidhi iimaanka iyo beentu isma galaan beentu qofka shiki bay ku abuurtaa shiki iyo waswaas iyo cabsi bay ku abuurtaa halka runtuna qofka mu'minka ay siisa ma aragtaanay nabad uu ku helo cadaaladna qofka muslimku waa inuu yeeshaa cadaalad labada ilmoodeed wada dhashay baa la rabaa inaad u cadaalad samaysid saxaabi baa nebi maxamed ula yimiday inankiisii buu wadaa farasna uu wadaa markaa buu yidhi yaa rasuulallah wiilkan waa wiilkaygii carruurta isagaan ugu jecelahay faraskana isagaan u hadiyeeyey buu ka yidhi markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi walaalihiisii isaga la dhalatayna ma wada siisay fardahaasoo kale ma wada siisay maya ma siina laakiin isagaa akhlaaq wanaagsanoo isagaan la jeclaaday markaa buu nebigu yidhi waryaa ama wada sii ama ka daa buu nebigu ku yidhi anigu dulmi mara ka noqon maayo buu nebigu yidhi markhaati ka noqon maayo dulmigaad samaynaysa labada ilmoodeed wada dhashay ayay shareecaddu ku leedahay u cadaalad samee oo ka ha u kala eexanin hadday noqoto wax siina dhaxal bay leeyihiin oo dhaxalkana looma dardaarmee nin walba dhaxalkiisu wuxuu qaadanaya suuratu nisaa iyo suuratulbaqara ilaahay jalla wacala uu kaga warramay ugu dambeyntii sidaan quruxda noogu soo baxay markaa soo dhammaynay aad iyo aad u fudud yahay waqti badan maba qaata aslan sisinta qaf sameys yaqaani iyo qafka aqooni inta uu samayn kara ka faa'iideysto insha allah hadda waxay ugu jirto waa 2 koob oo sokor waa dhalaalin doonaa waxaa ku sameyn doonaa nacloos goormaa kugu dambeysay wallahi ilmanimadii soo xasuustay aad u jeclaan jir markaa yaraa still waa jecelahay aad u macaan badan yahay waxaa dhalaali doonaa sokorta iyada sida sisinta loo sameeyo naclooska ma dhib badno looska waa soo dhambale xogaa waa soo jijibiyey kadibna waa soo shiiday aad laakiin uma shiidin budo saaid ma ka dhigaysid wax yar soo shiiday kadibna isina isdhexgeli doonaa kadibna sida sisinta loo fidinaa la gogoynaa aad u fududahay bas waqti wuxuu rabaa bas le xoog saaid uu rabaa markaa fidinaysid xogaa sisinta waa jilicsan tahay laakiin si xoog wuxuu rabaa extra laakiin insha Allah arki doonaa sida ku soo baxo Our Prophet ﷺ told us, I swear about 3 things, he said. I swear about 3 things. Number 1, whoever gives charity, his money will not go down, I swear by it. Number 2, whoever humbles himself, Allah will raise him, I swear by it. And number 3, whoever forgives, Allah will increase his izzah, I swear by it. The Prophet ﷺ gave qasam, whoever forgives, he's not the weaker of the two. Whoever forgives is the stronger of the two. The more izzah is the one who forgives. And in a beautiful hadith in Musnad Imam Ahmad, simple hadith, اغفروا يغفر لكم. You can all memorize it. اغفروا يغفر لكم. Forgive others, Allah will forgive you. Simple hadith. Forgive others, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya adduunyadani meeshii lagu raaxaysanaya maaha halka shaqaa loo yimiday meesha raaxadu waa loo noqon doonaa إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا تصحوا لا تسقموا أبدا تنعموا لا تبأسوا أبدا تشبوا لا تهرموا أبدا أهل الجنة أبو رسولك يري مركي الجنة قلان أفر شيء بالله بشارين يا وعلى رنا أهل الجنة ما أنت لقى بلا بواحد ليده النلل أدي مشد بلهين الشباب نمو أن قبوا دم بلهين نعمت أدي بات دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالورنا يا guryaha jannada buu nabigu yiri sida guryahan adduunyada ma ahine sidaas ay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yiri asxaabtu way yaabeen yaa rasuulaha guryaha sidaan u galaynaa wuxuu yiri sida shimbiraha u duulaysan u galaysaan buu yiri cuntada cunaysaan biyaha cabaysaan sindha iyo kaadimina noqon maayaan cuntada waxa isku bedelaysaa daacadaas oo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhididkaas oo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma haraadayaan ما بكونيان على الحمى مجرته ونزعنا ما في صدورهم من غل الباب الجنة مركي جوغان لا بشيبه ولا قد ظهيريا هدي جيركوغينا الجنة انتي قلين بالبدليا لابتو ذا وحي كجري غل اي حسد يدبعات دي حنيد يا بغضقي يا وحينا الكاس على قربيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وحكى مغلي مايان سلاما بي مغليان والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم نزلا من غفور سلام قولا من رب الرحيم نحن دنا والسلام ملائكتنا والسلام حق السلام كنا سلام با كيمنيسا سلامتك كيمنيسا سلامتا waxay ka timid dal oranaya
من الحي الذي لا يموت إلى العبد الذي لا يموت دينتي يا إيمانك إسلام نمضو وحي بني آدم كالسينيسا صفات إلهي كمدا الأبد صفة الأبد يلنا يقفك بني آدم مركو جنة قالوا من الحي الذي لا يموت وحال أورنا يا السلامتني وحي كتمدي إلهي إنه لهي عن دمنين وحي أول إمتي أدونك إلهي يسونا عن دمنين هديتول نعمة دا إلهي نو دياريي نعمة دا وحان كوهلين وان هيسنا إيمان كان كوهلينا سلام نمدا كوهلينا ugu dambeyntii sidaan quruxda badan ay ku soo baxayna naclooskeeni aad u fudud yahay ka faa'iideysta insha Allah hadda ilaa inta video soo gaartay waa kaaga mahadcelinahay fadlan haduu ku cajabay like iyo saar adaa qabta comment ila soo wadaag asxaabtaada la sii wadaag عيد المبارك تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال إلهي عيدا عيد عمري عافمات إلهي هنو غارسيو إلهي كوي صونغين قيام كن لغا أقبل الله نغا ديغو سلام الله عليكم